صوت صومالي وقال المالينية مسلم معها horta nafsi baa meesha yaallo diyaaradeen assalaamu calaykum halka warwad cabdi faarax su-aasha meesha tale waxa weeye sod soomaali dadka ku nool ee sod soomaaliya la yidhaahdo aan weligii ma tegin sod soomaaliya because waddan waxaan deganahay aan leeyahay nimcada iyo nimcadu taallo oo somalilan la yidhaahdo oo nabad taallo oon habar lagu kobsano qof lagu dilin oo qof lagu xumayn oo nabadgelyadeedu heer sare tahay hadda soo garan waxaad iga waranto dee markaan wada hadlayno somalilan nimadana aan wada hadlayno waa wax toosis moogtahay madaxweynahaanu canaananaa maskaxdaan ku dhufanaa madaxweynaha canaan waxaan doonaanu samaynaa waa toosin waa reerka sidaa laga daayo yaan wacyadeena jajabin weeyaan waddankeenu hagaajisano maaha nabcaashaanu necebna dowladeeda iyo dowladda somalilanba laakiin reer soo soomaaliya walaal su-aal baynu weydiiye magaalaatiin mise muslim baatiin su-aashaasaan rabaa inaynu weydiiyo sod soomaaliya dadka ku nool ee dhiigga dadka loo xalaaleeyey ee isqarxinaya ee iscunaya ee isliqaya ee aanu ka raysanay haddaanu nahay republic somalilan ee maalin walba qarxay weliba qarxyadu imika ku yaryaryihiin marmar baa qaraxis ku dhacaa ee weligood isqarxinaya ee weligood isxasuuqaya ee weligood isdilaya ee weligood iscunaya wal horta soomaali horta waa u malaynaya tiina waan isu eegnahay waan isu eegno waxaan maya soomaalina tiina waan isu eegno dad sida Itoobiya kale isugu eegnayaa la tirinayay iyo noorad Suudaan walaal muslim baatiin mise gaalaatiin saasha meesha taala waa taala special anu waxaan aaminsanad gaalatiin een muslim ahayn soo Soomaaliya because haddaad muslim tihiin dee ismayna qarxiseen haddaad muslim tihiin ismayna cunteen haddaad muslim tihiin ismaa dhibaataysan laakiin dhibaatadaas waxay ku timi mataqaanaa waa nafsigaad naga gasheen baa weli carjawdeediina haysataa nafsigaad ka gasheen somalilan oo masaakiina oo soomaali jecel oo moodaysay idinkooda soomaali og inaad soomaali tihiin moodaysay baa xorriyadeeda markay qaadatay bay gebigeedii bay isdhiibtay oo koonfur ku biirta markay ku biirtayna waxaa loogu foodhaqay yacni xasuuq ayaa loogu bedelay oo waxaa loogu bedelay in diyaarada lagu rusheeyo oo waxaa loogu bedelay in madfaciya lala dhaco oo waxaa loogu bedelay in kooda lacagta la guryaha inta lagala soo baxo la daldalo waxaa loogu bedelay in bandow laga dhigo waxaa loogu bedelay gabdhahooda in la kofsado waxaa loogu bedelay guryahooda in la xasuuqo furniturkooda la gurto gaadhigo ay la soo degaan laga qaado baada laga guro bandow laga dhigo ayay ugu bedesheen soo Soomaaliya Somalilan reerka la yiraahdo ee calanka ay ku seexdaan ay ku soo toosaan aniga laftigayga wallahi marka shaqeynayo baan iska saaraa mooyaane dahab bay isaga igala qaalisan dahabka la xidho Soomaali arag ee gacmaha lagu xidho wallahi kana igala qaalisan hada Soomaali garan shaqada markaan gelayana bogoska yara gaariga maartay bogoska gaariga ayaa ku dhexritaa weliba waxaan ku ridaa bogos yaro kalan ku sii dhexridaa saa uguma tuuro xitaa gaariga bogoskiisa no bogos yara soo iibsado caagada yaro daboolaan ku sii ridaa qaaleerku igala joogo soo dadkaygii baa lagu xasuuqay calankan waxaa lagu xasuuqay dhallinyaradaydii tijaartaydii dadkaygii calaamadaa madow maaragtan xidigtaa madow waxa weeye xasuuqii aan soo marnay greenkuna waa nabadda barwaaqadiina waa kaa dhiiggina waa kaas diyaaradahaad nagu rushayseen marka maantana idinkiibaa iscunaya anagoon ini iman oo somalilan ah oon ini iman oona waxba idin ku darsan alloora somalilan ma goyi karto bal adigay leedahay adigoo qarxaya bal adigoo qarxaya oo meelaad maraysa aanay jirin ayaad waxaad leedahay hawadii baan la soo wareegay somalilan ma gooyi karto no ma gooyi karto war anigu markaan kugu soo dirsanay naanaab iyo talyaanigu webiga kaga talaabayay isagii xawataako natinka markaan aynu kusoo dirsanayna anagu somalilan aanu nahay markaan aynu kusoo dirsanayna shanta soomaaliyeed baan raadinayay NFD baan raadinayay ogaadeenayaan raadinayay jabuuti baan raadinayay shanta soomaaliyeed aan sukeenan raadinayay markaan kugu soo dirsanayay laakiin waxaad noqotay afris talyaanigu يعني دقن برايو توغو مافيا باد نقط أنا قد ألورة إلى تبي شكل إيطاليانية oo diyaarada igu rushaysay
oo ummaddeeda xasuuqday oo xaquuqdeeda xaqiga kaa waayay ilaa maalintii odaygii xumaay aadan cadde ilaa odaygii xumaay cabdirashiid cali jarmaake ilaa kulligiin hay kala soocina all them shit tim fucking shit baatin kulligiin macalmaytidiini dhimatay meeqa jeer baan rabay inaan dib u noqono oo inqiraabkii naga kashifmay laakiin de aniguna ma arkan maanta ah shiish wanaagoo midhan bay qarxinayay oo igu soo sheekhaal buu ahaa shiish wanaag reer oo qudub buu ahaa ninkii shiishka soo tuuri jiray baasuukaha iyagoo dadku quraacanayo ee guryahooda ku dumeeyeen aan qof ka bixi karayn horaad ii soo cuntay aniga thank you horaad aniga ii soo cuntay today fucking is yours every dog you have day today is my day maanta barwaaqan ku jira anigu shan fucking madaxweynaan maraya shan madaxweynaan maraya dowlad waxaan marayaa aan doorashadaan ka dooranayaan lay fucking maayarkii hore ima haysanaye free speak baanunay maanta anigoo cidna qabilaad ku nacay ayaa free speak ahay maanta maxaa ku haystaa dhalinyaradaadii aroosanaysa baad ku qarxinaysaa hudheeladiinii isma aaba yeelaysaan kulligiin madaxweynihiina kulligiin sebshid baatiin farmaajaaba qaraxa ninka ugu sarreeya yahayna iyo faad yaasin ahe because isagaa waa lagu ridayaa dabeetana dadkii buu qarxinaya farmaajo faad yaasin laakiin aniga sood soomaaliya xbiigi ma gelin laakiin waxayna qarxinaya waa faad yaasin iyo farmaajo nobody else al-shabaab maaha adeer al-shabaab baa sheegatay iyo al-shabaab weeyaan iyo waa been al-shabaabkiina barlamaankiina ku jira idinkoo dhan bay sii gunaanadaya markaad baxaysanoo al-shabaaba alla nabsigu xumaa anigoo qurbaa joogay markii esam soo gashay dalka ka baxay oo qurbaa inta sano jooga ayaa ku noqday dalkaygii wallahi gaadhaan ku wate dariiqayaan istaagay inta mooyo saxa weyn oo dheer aan qaato ayaan dariiqa istaagayaan ku kaajayay oon darma dhiganayay oo shaah karsanayay oo dariiqa fadhiyey ay baabuurta saa ii eegaysaa saa laygu soo gudbin iyadoo laba gabdhood ila socdaan weliba iga yaryar think about it how is the fucking life beautiful my home it's a beautiful thing oo laba gabdhood oo iga yaryar ila socdaan oo la kufsan karayay oo anigu dhali karo oon darmada inta fakino xaaba soo gurno killiga xagga damba kada saarano biyaha mooysaxada boqos baan wadanaa ku shubano sokorti baan wadanaa shaahi baan wadanaa yacni waxaan fiilgaraynayaa geed hoosta inaan fadhiisto iyagu ma eegayaan quruxdan eegayay anugu oo hawadan qaadanayay iyo xiisaan dalka u hayay iyo ciidan dhex fadhiyay iyagu ma fiilgaraynay laakiin qurbaan ku raago anu waan fiilgaraynayay hadda soo garan a feeling home a feeling hawada marka saa airport kaga soo degtid waxaad fiilgaraynaysaa is your home Australia airportkada markaa kasoo dego iska normal baanay laakiin kaas wadnahaaga waxaa kusoo dhacaya waran ayaa kusoo dhacaya naxariisa inaad adigu dalkan leedahay inaad dalkan leedahay oo this your home tahay ayaad qalbigaaga iyo niyadaada iyo dhiigaaga iyo maskaxdaadaba gelaya oona lagu kobsan aan samayn garan berberaan habeen barhka tegi jirnay oon dariiqna la istaajin oon dowga marayna habeen badhada 2:00 in the night wallaahi oo bilaahi oo tolaa dowga mari jiray oo subaxda waagu markuu saa uga bariya aan berbera gala habeenkii oo isku jira aan badr dabaalan jiray badda markaan dabaashana hudheelka ayaan ku meedhan jiray 5 bixin jiray maxaa leedahay 5,000 oo lacagta laankaan biliibi jiray denda hudheelka intaan ku maydho oo soo labisto baan haddana intaan hudheelka quraacdo dib haddana gaariga intaan intaan cagaha jaaj garaysto oo meelaha lagu jaaj garayo tago atigis 10 laan bay ga qaadan jireen wiilashaasi aan 20 laan siiyo oon baad hor ku shubto ayaan kalluun freshna gadan jiray oon barf ku guray hadda sabaad garansan hooyada u geyn jiray kalluunkana waqtigaas ka hadlayo mataqaana waa early morning
أنا خلوق مش لقى قاري أنا خلوق وكسر بيحجري بالبراء وأكسر لقون شري برعو حاجة سنسو هيام شري can you believe عندنا ساي تابن شرين عندنا إيه شرين عندنا يقرحينين أصلاً قرن عندنا ساي تابنين لكن وحنو باهنا إنه تاسو نبض دولار هايسنو إنه نبض السنو شران كسي ضد كسي خورين الله سعودة روادين ضد كيقبلوا كل نورين ريبابليك سوماليلاند qof ah muwaadin inuu buul ku noolaado ma rabo Republic Somaliland dadka inay sandaqad ku jiraan ma rabo Republic Somaliland qofka dukaan samaysan hadaan daar samaysan karin inuu sandaqad ka samaysto dukaan uma baahnin oo dariiq la fool xumeeyo roorida faraha badatay ee dariiq walba taagan la joojiya raba oo qof weyn oo haysta iskuul ka soo baxay experience job hudeel la iska furan karo adigan iskuul u gelin hudeelkii oo aad chef ku ahayn شهادة وانا عيارتا وين قفكن برتا نظافة هودال ما كانت فرنسا وانا نظافة كجرتا دالكو حو باهي سبكتر وحلي هذا سبكتر بو باهية سبكتر باهية تشاقرية عطوينك دعاي دووينك إلا داد واحد هورو مرايو قرحس كجريني وين هورو سعنا حدود رحلنا كونفورينات للايدين سوماليلاند ما قوي كرتنو سوماليا كما قويسنو أديكي با حاركو دبا سودا من ديركاغا با دولكا يالا ميركاغا اسكريكو قوسين باي سوري ميركاغا ماري والبا رفربا داد هورو maray oo bilaba dhaadheer bilada wadii dhigi jirteen waqtiga hore bilaba dhaadheer dhistay oo fooqaygo hab mareedo inta alloora ma dhisan kartid maanta wada fooq baanahay adigay ka dhamaatay anigu waxaan Republic Somaliland laba dawladood isku darsaday sida Djibouti oo kale qasbiguma haysanaysid adigiiba qarxaya adigiiba maalin walba lagu qarxinaya adigiiba maalin walba lagu xasuuqaya adigiiba nabad ku noolayn adigiiba Amazon ku ilaalisa adigiiba Ethiopia ku ilaaliya dalkayga cidima ilaaliso dalkayga Republic Somaliland militarygooda ilaaliya booliskooda ilaaliya immigrationkooda ilaaliya adiga yaa ku ilaaliya adiga waxa ku ilaaliya Amazon aniga Amazon ima ilaaliso marka I'm feel sorry for you aad iyo aad baan uga xumay qarxiskiina iyo dhalinyarada inaad xasuuqaysaan yeeliga is xasuuqaya atiga sireen muslim hayn baan u malaynaya muslim ma tiidin gaalatin صوت الدين المحمدية واحد تريد قف ديق لما قف ديق سنة قاعدين معها إنه قف حسوق دين معها إنه قف نفتي قاعدين معها إنه هذا اسمي إذا كيف اسمي لينا يسخر حرية سبحان ربي على وبالحمد إذا كيف إلينا ماطر إنا الله وين راجعون إنا الله وين راجعون ما نقول بميت تاجن دول كيف واحد هنا قاعد لا حباليني يدد كل رماني anyway it's not our business الله لو احنا قصيات دون الريبوبليك سوماليلاند بعد السكير قرينا وقولنا قرينا كنا 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 دي بعضنا هنو سوق قلنا قحوتينا نوانو علينا وح قحوتينا نوجو سوق قلنا هايس دميان وح الله لو احنا قلنا ما جرتو أنا قبورش كي قرصف عن عرينا يو الحوض يلا وحلا ورهنا نوجو سويني هرانا سوينا ندور عدو الله هوران بدو صنبرني هوران لوسو بابي هوران ديالada noogu rushaysa walaa nafsi xaaba ka guro hooraa dahabkayga iyo xoolahayga iyo maalkayga u dhacdeen maanta anagu waligayni saamix mayno dadna Soomaaliland waligayni saamix mayno nafsiga naga gasheen waa kayni haysta aan walaalahay ku weynay aan ragay ku weynay aan ubadkay ku weynay aan jiiraakay ku weynay نفسي وين هايستا كوانا المادر نهاي وقولي قادة قراعانا سلاو نحرسته هل قوان با كبحري هل قوان وزدحجينا كبحري تضوقف في هايين ليه ما الكاسي وقراعانا يا نكي شيشو وناك سوري ذا يا سياد برو شقينا يا شيخ خالد هل كوكو ماذا يو قراعانا يا هل قوان يربا كبحري إنهي وينك برعت شوكته باك بحري reerkii dhamaa waa hooyadii oo mula oo ilmihii dhashay kulligood
inaa lawan raajico marka horaad noo soo cunteen annaga oo guryaha iyagoo annagoo saa u taagan aad madfaciya la dhacayseen idinku waaba ismiidaaminaysaane oo intaad wax isku xidhaane warba nafsigaa ka warraba ood madfaciya la dhacayseen diyaarada ku rushayseen dadka iyaga xasuuqdeen layseen xidhxidheen adeer markaa ka huleelo hagar aadankii humbulayn jiray sod soomaaliya yaa faqda soomaali ma wada nihin faqda soomaalinimada way kuu dhammaatay geeridaada maalin walba taalla nacdal bayna ku taalle qarmuun baa tihiin horaad oo soo xasuuqdeen yaa todayna idinkaa dhimanaya wax allaala wax naga gelay ma jirtaan nidaamka republic somaliland we don't give a fuck you guys waxayna ku dhacay waxba nagama gelin xabadi kaante baadna lahaydeen xabada sugtaatiin maanta waa taa inay haysataa aniga waxay iga dhammaaday yaa dib bay igu dhasheen dhalinyaro dambe oo dhalatay baa iisoo dhalatay dhalinyaro dambe oo cusub baa dhalatay dad badan baa dhashay 16 jirkayga 17 jirkayga dib u dhalay laakiin adiga maanta amison baa ku ilaalisa bal nafsigaa ka waran you know why xaqaygii xaquuqdeeda cuntay cashuurteeda cunteen dekadeyda cashuurteeda waa cunteen wax walbaad cunteen dekadeyda berbera maanta cashuurteeda anaa cuna anaana karaystay maxaad adigu maanta haysataa haddana bam oo haddana bam baa kugu dhacay maxaa haysaa hadda lagaasi jiradaadii baad xasuuqaysaa maanta kuwiisaa roosada xasuuqaysaa misead wada ooyeysaan oo is wada aasiysaan I don't give a fuck what happened to you guys. We don't care because we cried long time and we happiness now. My home. I don't care you guys what happened to you now. Now. I don't care. You think I care about you? No. You thinking I'm worrying for you? No. Because I have happiness in my home. And thanks God, I'm Somaliland. Thanks God, I'm Somaliland. Ilaahayga Somaliland iga abuuray inaan u dhashay dadka qiimaha iyo sharafta leh ee Republic Somaliland ee ku fakaraya dhulkooda iyo dadkooda isqarxinayna is cunayn. Ilaahayga iga abuuray ummadaas Somaliland ayaan ku xamdiyeeyaa kuna shukriyeeyaa asoon garan marka ilikayli dhamaatay anigu waxyaalaha yar naga dhiman oo sameysayna wadooyinka iyo dhaqaatiirta iyo riyaha iska gurnayo maayraad adag baan oo sabaxaya maayraada hore bedelayna horaan u soconaynaa anagu horaan u soconaynaa meel walba airport baan ka dhisanaa meel walba no more islaanta bambul ku jiifaysana Republic Somalia warshadaydii sibirkaan ka xilaynaa imika haddaan ku ceena warshadii sibirka laamiyaa u dhisaynaa kubriya dhaadheer baan u dhisaynaa xuduudaan soo xidhaynaa weliba xuduudana electric baan ku xidhaya warsood Korea North Korea kalana faki ku ekaada dalkiina dalkayga ku ekaanaya ay motherfucker meedala leedahay dhulka dirbaan waana iska leh hawiyaana naabkaad qarxinaysan ku ekaada hawiyaana naabka bilaa xaquuqda xaqna ku fakirin Soomaali ma kala go'aysan no ee dabeerka ee ambulada ku nool ee bilaa aqliga ah ee dekadiisa la isticmaalo ee riboodkiisa la isticmaalo ee dhulkiisa Puntland isticmaala hawiye may ee Kismaayo isticmaala hawiye may ee isaga la isugu wada yimi dadkii Yemen ka yimi oo dhan isugu yimaadeen aan dalka u dhalan isaga de marka horeba gumaysaha yeelaye hal gumaysto anaga lama gumaysanayo aka yaabin la gumaysto aniga hawiyaha la gumaysto no me because anu kama iman Cumaan iyo kama iman ma taqaanaa Arab ma iyo daro Ismaaciil Arab ma iyo anigu naag diraan aduma garan nimanka hartigan anaga dhalay dhulbaanta anaga dhalay ursangeliga anaga dhalay majarteenka anaga dhalay aduma garan kama iman anigu hartiga anaga dhalay Arabta ah ee Arabta ka yimi
هوية دس حرين سنة هذا كوتالا هدس بعمله سنة هذا كوتالا هذا دود نقول سنة هذا يبوتلاني يو كيسماي لاني يو رحوي لاني يو I don't give a fuck يمرك اللامبا أنا وان قوستي أم ريبوبليك سوماليلاند دلبان ليحي هاد سمعت قرن دول كان aniga warsangeli wax daarood ay la daga warsangeli gahayri waxay la daga bas laba iyo bas la waa hindiye warsangeli waxay la daga nimanka hindida iska dhaafo iyo rubaante iyo warsangeli aan dhalay ada sabad garan dul kara madax bay ka yihiin sharaf bari ku joogan sharaf bari ku fadhiyaan waana Somaliland anagana dhalay waana isdhala ada sabad garan كل ما هوية مدلين وده هوية داري لا رجاس ده مرة رئيس قرحين لهاين ورزقيلي يا ربعته مرة قرحيس كيو حكى قيب قلي لهاين هذا صمت قرن طل واحد علي شرف له يساقه يعيسى هذا صمت قرن مركا هذا الصومالي دواي كلا تقطي وعلى كلا تجي قفل بمارتي حدود دينوات كلا قرن إنسان ريبوبليك سوماليلاند xuduudaadana waad garanaysaa ama isqarxi ama isbuufi ama sida xajanbuufta isu buufi waxba nagama gelin Soomaaliya ama baroorta ama maalin walba geeridina waan u jeednaayo deesta saaw eegrada de maanta waa de qaraxna wada qabsateen oo ceebini maaha qarax xamara hooyay wada ku qarax iska war alloore abaay waa la qabsanayno dhagahayga la qabsaday marka waxay dhaqan bayni noqotay waa la qabsateen waxaad ka xishoonaysan ma jirto waxaad ka qajilaysaana ma jirto waxaad ka wasuusaysaana ma jirto waad la qabsateen SMM baanigan ay xoreysay oo siyad barayga xoreysay aad baan ugu faraxsanahay hal Soomaali garan marka waxa weeye wassalaamu calaykum Republic Somaliland ka kaca fadhiga qashikaynu gurno dhagaxaynu gurno oo dhagaxa cadad ururisaan shabag baa lagu xidhaaye sida derbi oo kale aynu ka dhigno hada Soomaali garan oo meelaha derbiga ugu sameeyno oo ka kaca fadhiga oo garawaaga aynu jarno oo meel walba aynu ka shaqeyno oo gacanteenu isqabsano oo fadhiga waa kuwa khayrkeen loo xiiray aad aragtaan khayrkeen waa kuwa loo xiiray ya la qabso ka kaca fadhiga reer Somaliland ka kaca oo niyanaga baa ka kacno oo iska wax u qabsano qashka u gurno oo dalkaynu ka shaqeyno ilmaha yaalo oo rinjina meel walba oo fadhiga laga kaco oo Republic Somaliland gacmaha isqabsato uma maleeyo dhulbaanta inuu socdo wadanka qarxiska ah baarlamaanku dhex fadhiyo madaxweyne noqonaya dhulbaanta iyo warsangeliye uma maleeyo socdaan qarxiskaas nabadgelyahana bye bye Somaliland ha noolaato uma maleeyo dhulbaanta iyo warsangeliye qarxis u socdaane qarxis cid uma socotee وينك سواقرون وما سعت القرح سوى الملايين نمك جهيني Somaliland جهيني وما سعت الملايين يا قرحس فقشيني وما سعت الملايين نمك قرحية مركا وحوي النجاهين كحلين قرحس كاس هبرت عليه هبر يساقرون وما سعدوا ونمك الدرادو يساقرون وما سعدان عيسو درينا وما سعدوا قد بيرسيو درينا وما سعدوا نجاها أيرو مارت عد بك كشاين قيلدو مركا يسقرحين يعني قيلنا وينك والسلام عليكم باي باي